waxay ila muuqataa dhalinta Soomaaliyeed tahriibkeeda inay sabab u tahay dowlad la'aanta muddada dheer ka jiray dalka Soomaaliya oo keentay ama sabab u noqotay amni darro, waxbarasho la'aan iyo shaqo la'aan. Markii dalku muddo dheer dowlad la'aa, dhalinyarada ay shaqo weyday, waxbarasho weyday, nabad weyday, waxaa halka ka abuurmay inay shaki galaan himiladii dhalinyaradu. Intaas oo jirta ayaa waxaan u kala saaraan qaxoontiga waxaan u kala saaraa ama tahriibka laba group. Groupka koowaad ee 19 iyo wixii 19 wuxuu qaxay horay u degeen oo noloshoodii ay u noqotay mid degan. Groupkaasi waxay noqdeen groupkii dadka gudaha caawinayay oo siinayay maaragtay nolosha ka caawinayay, waxbarashada ka caawinayay, dhoofinta ka caawinayay. Waxaa bilowday hir cusub oo qaxoontiya labada group labada hir oo qaxa ah farqa u dhaxeeya. Kuwan cusub waxaa door ka qaatay markay wadamada tageen oo meel ay ka warqabin dhibta ka jira waxa u socda bay waxa qayb ka qaatay waxa la yiraahdo social media. Dhalinyarada markay rajadii dhigtay oo cabsatay oo himilo weyd cabsi la noolaatay waxay go'aansadeen kuwan lacagta soo diraya ee qurbaha jooga sawirada qurxoon soo diraya waalidkiina caawinaya masruufka soo diraya meesha ay joogaan waxa ka heleen aada iyagoo iloobay rajo xumadii ay ku beertay ama tustay inay arki waayaan khatarta faraha badan ee ka sokaysa ee la marayo bad iyo biriba. Di abaar noqon lahayd, lama degaan noqon lahayd, haday dadka afduuba noqon lahayd, haday noqon lahayd bahalo, haday noqon lahayd khatar kale caafimaad darro, haday noqon lahayd badda dadka cunaysa. Rajo xumadii dalka tiilay ayaa waxay ku kaliftay inay arki waayaan halista. Arki waaga halista iyo sawirada qurxoon oo social media wado oo beenta ah oo kuwa dibadda jooga ay soo dirayaan oo rajo geliyay. Waxaa inta u raaca qurba joogtii dalka dibadda jidhay oo lacagta heshay oo waxbarashada heshay oo inta dalkii yimid fursadii ku celiyay. Shaqadii ka qaaday, ceelkii ka qaaday, maaragtay wixii himilada gabdhihii dhalinyaradii qurxoonay gabdhihii iyo wixii filcay dalka filanaya laga qixiyay. Arrimahaas oo dhan marka waxay keeneen dhalinyarada inay ku noolaadaan cabsi iyo rajo la'aan ayna u bareeraan halista hortooda taalla iyagoo aan arkaynin. Hal waa cadi yahay laakiin meel helaya waa. Wuxuu cadi yahay waxa la yiraahdaa problemka jawaabaha waxa laga dhex doonaa mushkilada ruuxa dhexdeeda. Problem jawaabtiisa lagama doono outside banaankiisa lagama doono gudihiisa laga doono. Mashaakil qaxa ruuxiisa iyo xaaladda dhalinyarada ku sugan gudaheeda in laga doono. maxaa shaqalaanta haysta maxaa keenay shaqo ma heli karaan xiriirka waarka iyaga ka dhaxeeya dhalinyarada banaanka jira information ay soo dirayaan jidka la marayo oo khatarta problemka waxa laga dhaxdeenaya problemka mashaakilka ruuxiisa rabaan su'aasha laga dhax jawaabta laga dhaxaas marka waxa way dhalinyaradu waxay u baahan yihiin gudihii inay helaan shaqo abuur inay helaan waxbarashada maanta jidha waa waxbarasho mashaakilka dhalinyarada iyo baagamudanimada suuq culays ku waxbarasho markii la yiraahdo waxa lagu baranayo waxa shaqo lagu helayo in la bedelo waxbarashada oo la sameeyo waxbarasho farsamo dugsiyo farsamo bad ha noqdeen beeraha ha noqdeen xoolaha ha noqdeen oo dhalinyarada dugsiyo farsamo soo saar oo ay shaqo helaan vocational training ama dugsiyo vocational wax farsamo laga barto in dalka ay ka abuurmaan oo midda waxbarashada hadda caadi juqraafi bartay history bartay oo iska suuqa culays ku ah ku keenaysa marka in qaabka waxbarashada in la bedelo waa number 1 number 2 shaqada gudaha laga helayo iyo xelalka gudaha laga qabanayo iyaga iyo qurba joogta in iyaga mudnaanta la siiyo. Number 3 social media information beenta uu soo siinayo in laga hortago waa kuwa qurbaha tagay nin baa 15 bari soo maqantay inta soo xirta walaali wuxuu soo diray sawir qurux bari soo meel laamay taageer qurux bad waa been waa marka beenta kuwa qurbaha tagay oo fursad u gashay Yurub inay tagaan beenta ay u soo diray in laga hortago waa maxaa lagu la dagaalamayaa inta kuwa beenta Yurub tagay beenta ay soo direen waxa lagu dagaalami karaa kuwa Liibiya iyo inta u ka sokaysa maraya dhibta ay qaban maraan in laga shaqeeyo oo meesha mataqaana hay'adahan ka shaqeeya arrimo inay maraan Ethiopia tagaan sawir ka qaadaan Liibiya tagaan meelaha ku jiraan la tago sawir laga qaado dooyaha laga qaado laakiin UNHCR iyo hay'adaha la mid ama dawladaha waxa uu suurtagal inay muuqaalka sayrabi ku ama satellite ku qaadeen ama wariyaal ha u direen ama waxa in muuqaal la helo dadkii dhalinyarada khatarta la wacyi geliyo